haddii aad u malaynayso waxa lacag la'aan ka dhiga inuu yahay maadaama kharashaadka ka baxbixi uu aad u badan yahay been ayaad u sheegtay naftaada waxaan kula wadaagi doonaa maanta nidaam ka caawinay dib dambeysana aadan uga calacal inaad bilaa lacag tahay kusoo dhow hanti yeelo iyo xisaabi magacaygu waa iid anigana maanta barnaamijkan inuu daadiin doona ka hor intayna nidaamkan gudagelin waxaynu ku dhaqmi doonaa laba sharci sharciga koobaad si qorshe dollar walba oo jeebkaaga soo gala wuxuu wataa qorshe isagu u gooniyo oo uu rabo inaad ku qasbanaatid inaad hirgelisid balse haddii aad adigu qorshe adigu ku gooniyo aad u sii diyaarsid dollarkaas wuxuu qaadan doonaa qorshe aad u sii diyaarsay ma aragtay bisha markii lacag ku soo gasho bishu inta laga gaaray 50 caadi baa tahay jooga waa saxin laakiin 20ka u badbaraarugtaa u tirada markaad aragtid $10 inay soo hadhay war ma halkee beel marti lacagtay maxaan ku bixbixiyay lacagta waxaad bixbixinaysaa si miir qabla aana maadaama aad waday qorshihii aad hirgelinaysay dollarkaas u waday balse haddaad adigu qorshe adigu ku gooni aad u sii diyaarso waxaad hirgelin doontaa qorshihii adigu aad u sii diyaarsay marka sharciga koobaad si qorshe ka hor lacagtu inta aysan ku soo gelin gaar ahaan 5 cisho ka hor inta aysan lacagtaas ku soo galin sharciga labaad hirgeli qorshahaaga lacagtu isla markay jeebkaaga soo gasho ama akoonka lagugu soo diray ay ku soo dhacdo lacagta ka soo saar qorshihii aad si diyaarsay ku bixbixisada ugu dhaqsaha badan leh haddaba nidaamka aynu guda galno si aan ku tuso qaabka lacagtaada u bixbixin karto iyadoo qorshaysan haddaba badankiinu maxaynu sameynaa isla marka lacagtu ayna soo gasho waxaan ku bilownaa kharashaad maxaa dhaca markaynu kharashaad ku bilowno oo aynu bixbixino waxyaalaha aynu rabno inaynu ku bixino ama aynu ku qasbanahay $700 ayaa ku soo gasha bil walba ka bacdina waxaad bixisay kiradii oo $250 raashinkii xaafadda ayaad bixisay oo $150 biilkii xaafaddu ay si maalin loo isticmaaleen ayaad bixisay $50 biyaha iyo leyrka ayaad bixisay oo $40 internetkii mobilka kugu jiray iyo ka xaafadda ayaad bixisay oo $35 hadhaagaagu waa $15 haddii aad u malaynayso waxa lacag la'aan ka dhiga inuu yahay maadaama kharashaadka ka baxbixi uu aad u badan yahay been ayaad u sheegtay naftaada haddaba isla markaaba oran mayno dakhli ayaa isoo galay oo $700 lacagtaana waan bixbixinay ee waxaanu samayn doonaa markii koobaad waxaanu ku bilaabi doonaa waxa la yiraahdo qorsheynta miisaaniyadda waa istiraatiijiyad ay leedahay iyo xisaabi lacagta aynu rabno inaynu qorsheyno waxa weyn waa $700 waqtiga aynu rabnaa waxa weyn 5 cisho ka hor bishu inta aysan dhamaanin ka hor isla lacagta markaan geliyo waxa layna siinayaa istiraatiijiyad meesha inoogu qoran oo inaga caawinaysa in aynu istiraatiijiyaddan raacno ka bacdina lacagta aynu bixbixin karno sida aynu rabno waxa lagu bilaabay 20% lacagta in soo gali doonto inaynu kayd ka dhigano 2 baahiyuhu ma ahan waxyaalaha aad iska rabto waxyaalaha aad ku qasban tahay in aad bixiso halkan soo gali maayaan salahan banaan loo baxo cunto banaanka laga cuno lacag la iska bixiyo dar la iska iibsado taleefanka internetka lagu shubto internetka xaafadda waxaas oo dhan ma aha baahiyo ee waa rabitaan waxyaalaha aad ku qasban tahay ayaa soo gali doona baahiya rabitaanka ugu hoose waxa weyn waxyaalaha aad rabto sida internetka bixbixitaanka wixii aad rabtay baashaalka macaankii wixii halkaas ku qori doona in yar yar haddaba markii koobaad kaydka ayaynu gelin doonaa kaydka bisha shanaad ayaynu leenahay bisha May taasoo ah 140 kaydkii ma hoosan hayi lacagta inta soo hadha waxaanu ku bixin doonaa waxay noogu xigto haween waa baahiyaha waxyaalaha ku qasbanahay inaynu ku noolaan oo ah number 1 waxaanu ku bixin doonaa kiradii oo $150 raashinkii oo $100 adeegii oo $60 leyrkii bihii oo $40 halka maxaynu ku haysanaa oo in buuxin baahi haddaba maxay noo soo dhacay $210 ayaa inoo soo dhacay haddaba rabitaanka waxaad jeclaysataa ku qor gaadiid 50 ka dhigay gym 20 bixbixis 30 baashaal 30 kedis 50 internet iyo telephone 30 haddaba lacagtii $700 waxaynu sidaas ku qorsheynay bisha soo socota lacagta markaynu qorsheyno waxa aynu sameynay dhigaalna waan dhiganay oo $140 lacagtiina hadda waan ognahay marka ayna soo gasho waxaynu ku bixin lahayn mid waliba عليكم maanta meherada maxaa la shaqeeyay الله buugayga xisaabta xageenu doontaa xogtii sanadka hore dhan qorayay halkan ayaan ka maamulaa meheradayda iyo xisaabi fudeediyaha hantidaada mid ganacsi iyo mid shakhsi ahaaneedba shaacinta iyo xisaabi waxa ka dhiman waqti yar oo kooban haddii aad rabto inaad ka mid ahaato dadka tirada yar leh ee marka ugu horeysa aan fasaxno iyo xisaabi inay isticmaalaan linkiga hoosta yaalla WhatsApp-kaasi nagala soo xiriir si booskaaga aad u xaqiijisatid isla marka lacagtaas ay soo gasho markii koowaad waxaanu xaadirin doonaa lacagtaas inay soo gashay ka bacdina waxa leenahay mushahar lacagtaas way soo gashay xaadiri
kabacdina lacagtaas markaan 700 aan ku daro waxaan leeyahay dakhli lacagtaasi jeebkayga soo gashay haddaba kharashaadkan bilaabi doona kharashaadku ma mid niyadda iyo waxaan jeclaystay wixii soo baxay ahba maya ee qorshahayga ayaan hirgelin doonaa markaynu soo diiwaangelin waxaanu tegi doonaa kharashaadka waana haddeen meesha ugu dambaysa ee aynu ku dhaqaaqi doono oo ah kharashaadka halkii markii hore aynu ku bilaabanay lacag markaynu soo gasho inaynu bixbixino hadda kharashaadka iyo bixbixinta ayaa ugu dambeyn doonta hadda waxaanu leenahay markii koobaad waxyaalaha aynu ku bilaabi doonaa waa maxay waa kow waa kaydkii ayaynu dhigi doonaa maxaa ku xiga waa kiradii lacagtii kirada ayaynu bixin doonaa maxaa ku xiga waxa ku xigi doona waa raashinkii markaynu soo adeegno maxaa ku xigi doona adeegii xaafaddu ay isticmaalaysay maxaa ku xigi doona layrkii iyo biyihii maxaa ku sii xigi doona gaadiidkii oo ah hadda maxaynu soo galnay rabitaankii waxyaalihii aad xiisaynaysay waxyaalihii aadan ku qasbanin inaad ku noolaato laakiin inaad rabtay sida jiimta bixbixiska madadaalada waxyaalaha kediska internetkii telefonka haddaba aynu helno xog inagu filan bishan waxa aynu sii qorsheynay $700 maxay inaga baxeen qaab noocana ay inooga baxeen hadda xogtiinu way caddahay sidoo kale waxaynu ognahay in lacagayna u badan halka ay ku kala baxbaxaan lacagteena u badan sidoo kale yaan la iloobine waa maxay qaybta u badan 20% waa inoo dhigaa haddaba aynu soo muraajacayno nidaamkan ha sugin lacag inta ay kusoo gelayso ee kow sii qorshee lacagta ka hor intaysan kusoo gelin maadaama iyadu wadato qorshe iyada u gooniya 2 hirgeli qorshahaaga sida ku dhaqsaab badan aad mahadsantiin daawashadiina marwo iyo mudane magacayguna waa iid waa inoo marka xigta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu